uu inay jibiyay kulankan. Enzo Maresca oo afka furtay kadib guuldaradii Brighton. Tababaraha Chelsea Enzo Maresca ayaa sheegay in wax walba ay qaldanaayeen intii lagu guda jiray guuldaradii 3-0 ay kala kulmeen Brighton, isagoo ku tilmaamay inay ahayd bandhigii ugu xumaa tan iyo markii uu xilka qabtay. Tani waa markii labaad oo toddobaad gudihiisa ay Chelsea ku jabto gacanta Fabian Harzler iyo kooxdiisa. Chelsea oo aan haysan Nicholas Jackson iyo Marc Guehi sababo la xiriira dhaawac waxay aad ugu liidatay dhanka weerarka, mana aysan sameyn hal kubad oo bartilmaameed sax ah oo shabaqa lagu toogtay. Uu inay jabiyay kulankan ayuu Maresca u sheegay Sky Sports kadib guuldaradii xalay. Waxaan ka xunnahay taageerayaashii soo safray. Waa niyad-jab aad u weyn marka aad eegto xaaladda aan ku jirno, iyadoo 14 kulan oo kaliya ay ka harsan yihiin horyaalka. Waa inaan si wanaagsan u ciyaarnaa. Waxaan ku jirnaa waqti ay nagu adag tahay inaan goolal dhalino, isla markaana si fudud goolal nooga dhashaan. Ka hor goolka ma aysan helin fursado badan. Waxaa jira waxyaabo badan oo aan hagaajin karno. Waqtigan waa inaan isku xirnaanaa. Mar walba cadaadis ayaan dareemaa, laakiin tani waxay ahayd ciyaartii ugu xumeed tan iyo imaanshahayga. weli waxaan ku jirnaa kaalinta afraad, welina waxaan u tartamaynaa booska Yurub. Chelsea waxay kaliya guuleysatay 2 ka mid ah 9 kulan ee ugu dambeeyay ee Premier League, waxayna toddobaadkii hore ka hareen FA Cup kadib guuldaro ay kala kulmeen isla Brighton.